qaraxani oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo nuuciisu yahay caasi ama hoomey ayaa ka dhacay degmada Waaberi gaar ahaan suuqa beerta ee magaalada Muqdisho. dadka ugu badan ee ku waxyeeloobay qaraxa ayaa ahaa haween qudaar ku iibinayay suuqa beerta oo qaraxo oo ka dhacay. wararka qaarna waxay sheegayaan in gaariga qarxay ay surtaag ku sameeyeen ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya, halka wararka kalena ay sheegayaan in gaariga meesha la sii dhigay. laamaha ammaanka dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen wadihii gaariga qarxay. su'aalna la weydiinayo dhaawacyada ayaa gaaraya ku dhawaad 20 ruux iyo 19 dhimasho, kuwaasi oo dhammaantoodba dad shacab oo ku ganacsanayay suuqa maanta la qarxiyay. dad goobjoogayaalaha ayaa ka sheekeynaya qaabka ay u dhaceen iyo waxa ay indhahooda ku arkeen. runtii waxaan gacanteeda aan ku qaaday aniga oo ah Macallin Muuse meed gaaray ilaa 17 halka dhaawaca ay gaarayeen 37 oo runtii aniga oo Macallin Muuse gacanteeda aan ku qaaday oo aan saaray hoomeyada wadada socota ayaan askarta ciidanka ku soo carartay noo soo istaajiyeen, dadkii rakaabka saarnaa ka dejiyeen, isla markaasna noo keeneen. runtii waxaa ka dhacay meeshan qarax aan runtii aad iyo aad u weyn. waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. meeshan u jeedin waxaa ka dhacay xasuuq aad u weyn oo loogu talagalay in dadka shacabka la laayo. dad badan oo ku xasuuqay oo hooyooyin iyo caruura wax loogu talagalay in dad kale iyo lagu laayo ma aha in shacabka magaalada Muqdisho la laayo ayaa loogu talagalay. waana u jeedin caruurta iyo maatada iyo ku baabaaday. ilaahay waxaan ka baryaynaa in dadkan masaakiinta uu ilaahay u gurmado oo dhibaatada ka dulqaado. waxaan waay meeshii dhibaa ka dhacay, qaraxa ka dhacay. ilaahay waa ku rooyahay, waa lagu burburay. dhaawaca 20 waa gaara dhimashada 19 meelahaas waa dhantahay. meelahan ku jirta waa ka soo bixinay. hadda amarkaas ka dhacay culeysna Allah naga qaado, dhibaatadana haysa Allah naga qaado. waxa caafimaadka ee gurmadka degdega ayaa sheegaya dhaawacyada ay goobta ka qaadeen iyo waliba dhimashada ayna arkeen intii ay wadeen gurmadka. meesha qarax markuu ka dhacay banaadir xarun agteeda aan kuleenahay kale ayaan ka soo baxnay. xabadu socota meesha nimada dhaawacyada intuuna ilaa meesha qaraxu ka dhacay inta ka dhaxeeyay daadsanaan ka qaadnay. dhaawacaan qaadnay ilaa 13 qofood oo ahay. dan markaas waa laabanay meedka aan tirakoobana aragnay 18 qofood. qaraxa ayaa dhacay xilli wadada u xirneed madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galayay munaasabad dib loogu furayay iskuulka 21 Oktoobar oo ku yaala wadada Fisooni oo u dhow halka uu qaraxu ka dhacay. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madax kale oo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa cambaariyay qaraxani dadka shacabka ku waxyeeloobeen. Cabdiraxmaan Cabdullaahi, Honkebel TV, magaalada Muqdisho.